waxa uu ka soo jeedaa dadka la yiraahdo Black Nova Scottish kuwaas oo madow Canadian ah oo yeeshii waxay dib uga soo noqdeen gumaysigii Mareykanka iyagoo adoon ah balse isagu waxa uu sameeyay heerar kala duwan oo nolosha ah oo ah in lagu taamil qaato waa actor sidoo kale waa soo saare ha ka reebin inuu yahay ganacsade iyo waliba mashaariic heer sare ah maanta waxaynu qaadaa dhigi doonaa waa The Rock magaciisa dhammaystiran waa Dwayne Douglas Johnson waxa uu dhashay 1972 da'diisu haatan waxa lagu sheegay inay 50 sano jirto goobta uu ku dhashay waxa la dhahaa Hayward California waa Mareykanka jaamacadda uu ka baxay waa Miami magaca xadhiga looga yaqaan waa The Rock ee musaraacada ku ciyaaro sidoo kale waxa lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa abid ugu wanaagsanaa ee soo mara musaraacada sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay musaraacada WWE taasoo bilaabatay waqtigii 1990 ilaa 2000 ay ahayd aasaskeedii iyo bilowgeedii wuxuu soo matalay 8 sano aflaantiisa waxay ka soo xareeyeen in ka badan 3.5 billion waqooyiga America iyo in ka badan 10.5 billion adduunka oo dhan taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah jilayaasha adduunka ee lacagta ugu badan soo xareeyay iyo kuwa ugu mushaharka badan leh sidoo kale Dwayne Johnson waxa uu ku guuleystay sanadkan 2022 Hollywood Walk of Fame ee ku guuleystay suunka tag team musaraacada tag team champion musaraacada noloshiisa hore haddaynu dib ugu noqono ka hor inta uusan u soo bixin jilaagas sameeyay lacagaha badan ee bilyamaadka ah Johnson waxa uu ahaa ciyaaryahan dugsiga sare ee Freedom la dhaho Butler Township High Valley waxa uu ugu dambeyntii u soo baxay inuu ka soo muuqdo kubadda cagta iyo kooxaha legdinta ee dugsiga kuwaas oo ku tartamayay shirweynihii Pennsylvania bari oo ah shir caan ah oo soo saara xirfadlayaasha sare ee Olombikada ka qayb gala waxa uu ku amanay tababarihiisii dugsiga sare inuu gacan ka geystay dhiirigelinta isbedelada noloshiisa Johnson wuxuu aqbalay deeq waxbarasho si uu ugu ciyaaro jaamacadda Miami sidoo kale wuxuu xubin ka noqday 1991 kooxdii horyaalnimada qaranka laakiin intiisa badan waxa uu ku qaatay kursiga kaydka 4 sano oo halkaas joogay haddaba The Rock ama Dwayne Johnson hadba saad u taqaanid wuxuu ka soo jeedaa dadka la dhaho Black Nova Scotian kuwaas oo ah madow Canadian ah oo yeeshii waxay dib uga soo noqdeen gumaysigii Mareykanka iyagoo adoon ah kadib waxay yimaadeen Nova Scottish Canada intii lagu jiray qarniyadii 18 iyo horaantii qarnigii 19aad marka la eego tirakoobka Canada ee 2016 la sameeyay dadka madow ama Black Novan waxay ku nool yihiin Nova Scottish badi Halifax meesha la dhaho laga soo bilaabo 1950 dad badan oo madow ah ayaa u haajiray Toronto kana samaystay nolol kala duwan waxay samaysteen 37% wadarta madowga Canada ku nool oo dhan 37% waxa ka ah dadka la dhaho Black Nova ee degan Nova Scottish. Salaamu calaykum xalqadeeni maanta intaas ayay ku egtay.